kulan saacada soconayay oo ay wada yeesheen madaxweynayaasha wadamada Kenya, Soomaaliya iyo Uganda ayaa waxa uu ka dhacay xarunta madaxtooyada wadanka Kenya ee magaalada Nairobi. kulankan ayaa lagaga wada hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid tahay howlgallada wadanka Kenya ay ka wado gobolada Jubbooyinka iyo waliba sidii mowqif midaysan looga qaadan lahaa la dagaalanka xarakada al-shabaab. madaxweynayaasha Sheekh Shariif, Sheekh Ahmed, Moi Kibaki iyo waliba Yoweri Museveni ayaa waxa kulankoodana ay kaga hadleen arrimo dhowr ah. shirkan oo ahaa mid albaabada ay u xirnaayeen ayaa waxa ka soo baxay qodobo 7 gaarayay oo ay 3 madaxweynayaal ku wada saxeexnaayeen. in la adkeeyo oo la meel mariyo qodobadii shirkii hore ka soo baxay ee la saxeexay 18 Oktoobar magaalada Muqdisho, ayadoo la tixraacayo shirka IGAD ee 41aad ee ay isugu yimaadeen dalalka IGAD ka tirsan wasiiradooda arrimaha dibadda 22 Oktoobar. sidoo kale warmutiyeedkii ka soo baxay shirkii labaad ee ra'iisul wasaare ee magaalada Nairobi ee ku xusnaa in si wadajir ah loo baabiyo al-shabaab. waxaa lagu cadeeyay shirka maanta oo 3 madaxweynayaal in ay howlgallada Kenya ay ka wado gudaha Soomaaliya oo yahay mid fursad taariikhi ah oo dib loogu soo celinayo nabad iyo xasiloonidii Soomaaliya, lagana doonayo inay taageeraan wadamo kale oo gobolka ah si Soomaaliya dib loogu soo celiyo kala dambeyntii iyo xasiloonidii luntay. ayadoo la tixgelinayo taasi ayaa lagu sheegay warmutiyeedkan in shirkan uu xoojiyay baahida loo qabo iskaashi laga dhex abuuro AMISOM, TFG iyo waliba ciidamada difaaca Kenya si loo baabiyo xogaga al-shabaab. waxaa lagu amaanay ciidamada AMISOM iyo TFG sida wanaagsan ee ciidamadoodu ay naftooda ugu hureen si ay nabad uga dhaliyaan Soomaaliya, taasoo keentay in caasimadda ay ka xoreeyaan xogaga al-shabaab. waxaa loogu baaqay hay'adaha gargaarka inay gargaaraan meelaha ay ka xoreeyeen al-shabaab si loo gargaaro dadka dhibaataysan. Ladies and gentlemen, this morning there has been a meeting between the 3 presidents of Kenya, Uganda and Somalia at State House, Nairobi. The meeting reviewed the political and security developments in Somalia and noted that the protracted conflict had generated numerous problems, notably terrorism, organized crime, influx of illegal arms, the refugee crisis, internally displaced persons in Somalia, and continues to threaten peace and security in the Horn of Africa and internationally. The meeting further discussed the status of the joint Kenya-Somalia security operation in pursuit of al-Shabaab insurgents and noted the gains already made by the TFG forces, AMISOM and Kenya Defense Forces, and the need to galvanize international support for this purpose. In this regard, the meeting, 1, reaffirmed previous commitments made under the joint communique signed on 18th October 2011 in Mogadishu and endorsed by the 41st Extraordinary IGAD Council of Ministers on 21st October 2011, as well as the Nairobi Communique of 31st October 2011, to jointly pursue the objective of defeating al-Shabaab and other militant groups to its logical conclusion. 2, expressed confidence that the joint Kenya-Somalia operation presents the region with a historic opportunity to restore stability and security in Somalia, and called for regional solidarity to bring to an end the state of lawlessness that has prevailed in much of Somalia over the last 2 decades. In this regard, waxaa kaloo muhiim ah in shirkan uu albaabada u xirnaa warmutiyeedkana uu akhriyay wasiirka arrimaha dibadda wadanka Kenya, Moses Wetangula. si walba te mas'uuliyiintan ayaa iyagu waxa maanta kulankoodan ay si weyn diiradda ugu saarayeen ahmiyadda loo qabo in kala dambeynta iyo waliba xasiloonida Soomaaliya dib loo soo celiyo.